maanta meek naar ay siyaasiyiintii Soomaaliland isku qaateen waxa ka lumayba ajandihii loo soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib aniguna hore waan u soo jeediyay in xildhibaan Maxamed Abiib la xiro iminkana waan ku celinayaa Maxamed Abiib maxaad leedahay waxa la igu qoorta ka tarayna uma dacwoodo lama soo xiro anna ma dhibsado uma jawaabo waxa la qaatay qof in dastuurkii sharciga inta doonaysay xoolaha umada dhacda ku shaqaysato dalka xukuumadda ugu horeeya ee xoolaha umada dhacay madaxweynaha ku jeeday haay madaxweynaha qaranka iyo kuwa la midka ah isla xisaabta nin hor iman kara golaha wakiilada ma jiro xilifow adigu maxaad leedahay labada meedood inay ku dhuftaan bay war xasaaradu haday qofka isaga dadka ka ilaalin wada tiisu maxay tahay tiisu ma quraanka ku taala tiisu labada meedood baa la taabanaya waa la iska celinaya waliba sida dadka loo dhaqmiyo caadiga joog xilifow adiga waxaagu waa libaaxay mid ku libaaxayeen adigana ku keeninay ar maxaad leedahay lijana waadu xilif maxamed haddii uu leeyahay qaran dumis yahay oo uu dembi taa ku leeyahay intaa ka horeysa ha la xidho koow xirsi ha lala xidho ciro jaamac shabeel buur madow jaamac shabeel baa ka mid a axmed khaliif baa ka mid a waxaa ka mid a ninka la yidhaha xeeldheeraa ka mid a ninka tibaa cadleeb jooga deegaanka la yidhaha cudhay baa ka mid a maca cirdiga madaxweynaha wax ka sheegan aanoo ogolayn in wax laga sheego madaxweynaha waxaad leedahay markaa dhammaantoodba xildhibaan Abiib iyo kuwa tilmaamaysaba isma dhaamaan oo isma dhaantiye dhashoodu dhammaantoodba oo dambiilayaan hal la iswada raacay miyaad leedahay intaa ka horeysa ha la xidho koow xirsi ha lala xidho ciro jaamac shabeel axmed khaliif sax waa gartay waayahay adigu maxaad leedahay lijanka kalow halka maalintii adigu caliyow aad ka garab siisay cabdirasaaq khaliif eed hariya habeenba u hiilinaysay u ordaysay eed ilaa iminka aaminsantay inuu soo guddoomiye yahay ee uu halkaa kaa soo amrayo faratoon ninkii markii la yidhi Soomaaliland ka noqon yidhi buu ahaa hadda ay dilaysaan wixii anigu aan sameeyey ee dalkan iyo dadkanba ku baraadhay ka noqon maayo ninkii yidhi buu ahaa waayahay haddaba siyaasiyiintani aad u jeedaan bulshada reer Soomaaliland dhammaantoodba waa siyaasiyiinteedii waxa isku haystaana waa kursi balse sidani marka siyaasaddu tahay sharaf ayay leedahay dimuqraadiyadda lagu sheegayana waa intani in la isku soo bareero oo halkaasi meek la isku soo qaato aanu dhiig ku daadan sharaf ay leedahay siyaasaddu marka ay saastay laakiin haddii sida laga sii badbadiyo oo qabaa'ilo ay sii gasho oo la is canjarafeeyo oo la is caayo siyaasaddu way fal xumaanaysaa haddaba dhammaanteenba waxayna kala celiyaa oo xaqiiqo ah waa dastuur wadanka u yaala dastuurka ayaa qof kastaba xasanaad siyaado madaxweyne yahay iyo hadduu yahay xildhibaan iyo nin kasto maanta xiriyaha dawladda ka shaqeeya shakhsi kastaana xasanaadiisa wuxuu ku waayayo isla dastuurka ayaa isaguna inoo sheegaya haddaba xildhibaan Maxamed Abiib iyo xildhibaano kale haday yihiin oo iyaga la soo dacweeyay waxa allaale waxay ku waanayaan xasanaadooda waxa inoo sheegaya waa dastuurkeena waxa oran lahaa marka bulshada intaad wareerin lahaydeen siyaasiyiintiin qaaqdahayo eedan jabaadahan halkan isku soo marin lahaydeen oran lahaydeen yaan ana harayon anaan harayo aan hadline aan hadlo ana harayo aan hadline aan hadlo oo bulshada si kala dili lahaydeen oo midba midkiina kala u eedeyn lahaa waxa soo kama qurux badna inaad intaad wada fadhiisataan dastuurku wuxuu idin jeeyay iyo nin kastaba dembigu qarankani ka galay in lagu qaado amaba se nin kastaba dembigu qarankani uu ka galay iyo ummadani reer Soomaaliland uu ka galay ee shaqada u dirsaday ninka xukuumadda maanta dawladda ka shaqeeya waa shakhsi la dirsaday oo u shaqeeya bulshada oo annaga ayaa horta dhammaantiinba aad noo shaqeysaan maadaama sidaas tahay haddii aad isla xisaabtamaysaan dastuurka iskula xisaabtama maxkamadaha dalka iskula xisaabtama sharciga dalka iskula xisaabtama balse waa laga qurux badan yahay waana laga sharaf badan yahay inaad bulshada intaad soo dhex istaagtaan aad meeg isku soo qaadataan oo sidii TikTok-leyda aad idinku maanta is eedaysaan oo midba midka kale uu eedayo midba midka kale uu hanjo midba midka kale uu caayo iyo aflagaado wax alla wixii adiga afkiisa ku soo dhacaba uu iraahdo waxay oran lahaa rag oo dastuurka dalka hal lagu dhaqmo iyo dawladnimada dalka ka jirta maanta ninka askariga ah ee tuutaha xidhan ambaba se kaakaga xidhani waxa
وحسناتكاسي وحلو قفك كله وكو احترامaya oo xiri kara shakhsi kale oo anigoo kale bulshada oo dambi ku jira wuxuu xiri karaa wax xasanaadkaasi iyo ixtiraamkaasi lagu ixtiraamayo dawladnimada sharafteeduna waa taasi laakiinse nin kama awood weeyna nin kama xiniya badna nin hooyadii aabi kama adkaan jiray nin awoowiyaashii kama adkaan jirin nin muusan gumaysan jirin nin intuu ku dhashay in ka badan kuma dhalan iyo in ka yar kuma dhalan marka maadaama ay saatay awoodahaasi ilaydi siiyay ee dastuurkaasi idin siiyay xasanaadkaasi dastuurkaasi idin siiyay waxa ay tahay inaad bulshada ugu adeegtaan oo aad bulshada aad ku kala celisaan balse inaad bulshada aad ku kala furfurtaan oo aad xilalkiina idinko eriyanaya aad tilaahdaan anigu haddii qaxilka laga qaado waan dagaalamaynaa haddaan ka soo jeedno beeshaasi annaga haddii xilka hebelka laga qaado way dagaalamaynaa ninkaasi kuwii kalena intan uu yiraahdaan adeer u gacaliye wuxuu dawladnimo ma noqonayso oo sharaf ma yeelanayso sharaftii dawladnimada ka qaadina sharaftiina dawladnimada ka qaadaysa baa aniga ay muuqata siyaasiyiintiina noocan u dhaqmaayo dib isugu noqda salaayir aniga maanta askaramiyo xiri karaya haddii aanan ixtiraameyn oo isan dawladnimadu aysan siinin xasanaadkaas uu igu xiriyaayo ima xiri kareen igama xoog weyna igama karti badna igama raganimo badna laakiin waxa siiyay oo dastuurka ayaa siiyay oo bulshada ayaa ku ixtiraamaysa dawladnimaduna waa ixtiraam iyo kala dambeyn haddii intaasi la waayo oo meesha ay ka baxdo oo siyaasiyiintii dawladnimada loo dhiibtayba ay is ixtiraami waayaan oo iyagii ay isqadarin waayaan bulshadana maxaad ka suganaysaan way iga su'aali bulshada is ixtiraamaysa miyaa la helaya waa xaasha lillahi bulshada is qadarinaysa miyaa la helaya waa xaasha lillahi haddii siyaasiyiintiina aad ugu horeysaan idinku oo aad qabyaalad aad ummadii aad idinku isku caydaan oo aad idinku haddaad qabaayil siyaasiyiintiina isku kala saartaan oo isku eedaysaan qabyaalado oo qaran dumis shakhsi ku tilmaamtaa sidoo shakhsi qaran u dumi karaya ummadaas oo dhan baa qaranka ilaashatay war bulshada ka xishooda shakhsina qaran ma dumi karaayo walaa ka madaxweynaha baan dumi karayn walaa mid xildhibaan baan dumi karayn walaa mid askari baan dumi karayn walaa mid military baan dumi karayn walaa shakhsi kale aan dumi karayn wuxuu doonaa ahaado bulshada ayaa wada dumi karaysa bulshada ayaana wada dhisan karaysa dawladnimada dastuur baynu u dhiganay sharaf baynu u yeelnay sharaftii dawladnimadeenu lahayd hal lagu dhaqmo siyaasiyiintiina soo oo ummadda ka xishooda sida dhamaantiinba aad u dhantiidin anigoon idin kala reebayn waxaad isku haysaana dastuur ay idin kala jeeyay ee dastuurka ku laabta oo adeer u gacaliye waxa hadii xildhibaankaasi iyo kuwa kaleba xil laga qaadayo meel loo maray leedahay meesha oo mara oo adeer u gacaliye joojiye may garan sida TikTok isku qaadanaysan wassalaamu calaykum